ciidan la Allah woofiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo waxa soo gabagaboobay shirarkii wajigii labaad markaa waxa kulanka ka qayb galay saddex group oo mucaarada iyo dawladda oo garaba afar iyo beesha caalamka oo garaba shanta group ba kulmay markii ugu horeysay nabad iyo nolol iyo dawladda iyo beesha caalamka ayaa kulmay markii labaad waxa kulmay mustaqbal wislay siyaasadeed iyo dawladda iyo beesha caalamka markii saddexaadna waxa kulmay group la baxay midnimo oo ka kooban saddex nin oo hadda ka hor dawladda ku biiray oo kuwan ka jabay haday ka soo jabeen dawladda oo ay mucaarad gaar ah noqdeen wax loo diidi karo mucaaradnimo ma jirto waxaan arkay warqad ka soo baxday qoladaas isku raranta oo le anaga kaliya mucaarada waxay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed u jeedaa oo ka akhriyi kartaa warqadda laba arrimood inay diidma diyaar leeyihiin no inay soo wadaan sidoodii laba inay fahamsanayn dawladnimada dawladda markaa kursiga fadhida cidii aan ahayn oo han leh waa mucaarad laakiin mucaaradka rasmiga ah idinka maaha mucaaradka officialka ah waa dawladdii ka horeysay dawladdan ee xilka laga qaaday hadii ay u taagan tahay iyada iyo ururkeedii hadii ay u taagan yihiin inay xilka qabtaan mar kale iyaga official opposition ah idinkuna oppositionka ka mid tihiin ee kaliyiin ma ahidin cilmiga barta wax barta laydin kuma karo wax bartay qodobkaas markii ay soo dhamaatay wada hadaladii ayaa shirar jaraa'id la qabtay shir jaraa'id oo ay qabatay nabad iyo nolol ayaa waxa markiiba ay la boodeen qolyo u shaqeeya fadeexaynta iyo ceebaynta iyo foolxumaynta nabad iyo nolol oo ay macawisley siyaasadeed ku daaban yihiin ama ay ka dambeeyaan baa waxay la boodeen kelmad uu yiri gudoomiyihii ururkaas ama kooxdii hadlaysay chairmankoodii wasiir hore maxaa Cabdirasaaq oo ahayd waxaanu qaadanay nooca dawladdu ay qaadatay sharaxaad baan ka bixinaya qodobka labaad doorashada la isla qaadan doono ama u badan hadda loo badnaan doono ama dhici karta in la qaato oo nabad iyo nolol ay qaadatayna waan sharaxi doonaa qodobka hore nabad iyo nolol waa consistent wixii ay shalay tiri baa maanta ugu imaanaysaa sida xasan inay iska hor yimaadaan laguma yaqaan shalay doorashadii uu diiday ayuu qaatay xasan waana idin sharaxi doonaa laakiin nabad iyo nolol doorashada hadda ay qaadatay oo keentay waa doorashadii taariikhda dib u baara 2018 ay baarlamaanka geysay exact one bay qaadatay maxay tahay macnaheedu waa principle waa dad mabda leh mabdaooda aaminsan raba doorashada in dadka loo dhaweeyo shacabku ay wax doortaan waligood aaminsanaa haddana aaminsan walina ku taagan waxa u dheer xasan inuu yahay copycat markii uu mucaaradka wuxuu yiri ma ogoli doorashadaas ay dawladdu keentay xilliga isaga diiday haddana isagii baa wata wax ma alifo oo xasan innovation ma laha laakiin waxbuu dad buu koobiyeeyaa nabad iyo nolol buu koobiyey marka nabad iyo nolol way ka fiican tahay isaga maya buu shalay ku yiri iyaguna hadda waxay ku dhaheen ha haye ma qaadatay ha iyadan kugula tartamayna qodobka ugu dambeeyay kelmadahaas nabad iyo nolol waxay cadaysay inay diyaar u tahay doorasho nooca la nooc ay ahaataba wixii lagu heshiiyo midda ugu foolxun iyo midda ugu qurux badan waxay jecel yihiin tan ugu qurux badan oo dadku shacabka ah inay iyagu wax doortaan haddii la waayo wixii lagaga bixi karo dadkuna ay ku heshiiyaan diyaar bay u yihiin kalsooni bay isku qabaan baqdin ma jirto cidna ka baqi mayaan waxa la wixii lagu heshiiyo diyaar bay u yihiin waana idinkula tartamayaan way diidi doonaan ha uga fadhiin yaa wax diidi doona laba qolo wax diidi doonta qoladaas isku raranta macawisley siyaasadeed iyagoo ajanda ajnabi ah hirgelinaya ama fulinaya way diidi doonaan waa aragtay niman faaninaya imaaraad oo mararka qaarkood dhex gelinaya khaliijka iyo wadamada khaliijka oo dhan waa fiican yihiin imaaraadkuna ku jiro imaaraad ma fiicna wasakh weeye ummadda Soomaaliyeedna way idin jeedaa meesha u socotaana waa la idin arkaa dad la iibsaday oo gadan inaad tihiin waa la ogyahay dadka guryaha inta hal aqal ama apartment laga siiyo imaaraadka
intaa ku qancaya oo markaa waddankoo dhan iibinaya waa laydiin wada jeedaa ummadda waydan arkaysaa one is for all ka xishooda ummadda soomaaliyeed ajandahaas idinkoo wada ha diidinina doorashada lagu heshiiyo labo waxaa diidi kara dowladda xasan sheekh maxamuud xasan waxaa lagu yaqaan in wakhtigu bedelo sida uu noo sheegay aniga duruufahay bedela buu yidhi saacad galabtii sibaan ahay habeenkiina sibaan ahay subaxdiina sibaan ahay saasaan isu bedbedelaa waa unreliable waa qof aan meel loogu yimaado lahayn oo loogu soo hagaago nin weyn oo qowl leh xasan hadduusan noqon isagaa diidi kara muxuu ku diidi karaa inuu technicalka diido oo yidhaahdo anaa maamulaya doorashada 5 qodob baa shuruudu ah doorashadaas inay hirgasho haddii 5taa uu diido xasan isagaa diiday doorashada isagaana mas-uulka ah wixii ka xasila hadduu ku ceebaysan yahay inay beesha caalamku dhex fadhido taasuu ka xishooday farmaajo wuxuu yidhi idinku soo qorta mucaaradow waad ogtiin 2021 September 17 waxaa gacantiisa ku wada qortay doorashada deni markaasuu inta qaaday geeyey baarlamaanka oo yiri u baasiya markaasaa baarlamaanku baasiyey iyadaana doorasho lagu aaday saasoo kale xasanow tanaasulaad samee way ahayd inaad tanaasushid dadkaaga aad la heshiisid iyaga u tanaasushid in hadda lagu soo qoor qabto ceeb iyo fadeexad iyada kuugu filan ha ku darsan mid kale in lagu dhigteyd gareeyo ha ku darsan ha gaarin halkaa 5 qodob baa shuruud ah guddiga dhexda dhig waa laga heshiinaya guddi loo siman yahay saamilayda siyaasadeed oo dhan ay u siman yihiin adiguna aad xubin ka tahay ayaa la dooranayaa ma aha guddigan shaatiga aad tolataya fadeexaddii baydhabo iyo ka dhacday iyo muqdisho cidina kugula tartami mayso waxaa nin shaatigiisa tolanaya cidina u qabqaban mayso guluusyadana ugu toli mayso labo sharciyada doorashadu ay ku shaqaynaysa iyo xeerarkeeda waa laga wada heshiinayaa dadkaasoo dhan baa ka heshiinaya beesha caalamkuna markhaati bay ka hanaysa sababtoo adaa bahashii geeyey beesha caalamka gogosheeda 3 agabka wax lagu dooranayo xildhibaan beerrey iyo xasan sheekh iyo systemka softwareku ay leeyihiin iyo kombiyuutarkooda cidina doorasho ku geli mayso doorashada qalabkeeda iyo agabkeeda waa loo sinaanayaa waa mid la wada keensaday warqado la wada qortay baaladyo la wada qortay meel la wada dhigtay la wada ilaashanayo ayaa lagu geli doonaa sidii baaladkii axmed aadan madoobe gurigiisa lagu soo xulanayay oo inta calaamadsatid lacagta qaadanaysay oo lambar 10 lagugu qorayay ma aha doorasho agabkeeda iyo baaladyadeeda iyo waxeeda iyo qalabkeeda la isla wadaago oo la isla maamulanayo wey 4 amniga doorashada waa in loo sinaadaa ciidan dhexdhexaada aan ahayn ciidan dadka caburin doona ama hantida boobi doona wixii meesha la dhigay sanduuqyada iska qaadan doona oo suu doono yeelaya oo madaxweynaha ka amar qaato isagoo u shaqeeya lama doonayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo loo sheegay inay ka madax bannaan yihiin madaxweynahuna uusan amar ku lahayn ee ay iyagu madax bannaan yihiin waa in loo xulaa oo ay doorashada maamulaan 5 daahfurnaan maxaa loola jeedaa daahfurnaan cid walbo xisbiyo tartanka galaysa sanduuqeeda waa inay dul fadhidaa waa in qof u jooga kaamarooyin live ah waa inay ugu xiran yihiin cid walba waa inay kaamara gashataa si toos loo daawanaya ay tirsadaan iyagu codadkooda wixii ay ka helaan iyaga aan laga boobi karin waa inay daahfuran tahay 5 haddii laga waayo xasan baa mas-uulka ah wixii doorashadaas ka xumaada isagaa mas-uulka ah dhibaatada ka dhacda xabad baa laisla dhacaya oo hadeerba waa laisla dhacay oo waa ogyahay xasan waad ogta mar kale xabad ha soo celin niman qoryo wataa jira ajnabi waxaa jira ka shaqaynaya amni darro jooji once and for all ogolow ummaddu inay hore u dhaqaaqdo dalkuna uu ka dhaqaaqo kana baxo meesha uu taagan yahay iyo hubanti la'aanta siyaasadeed xilkaad hadda haysid waa xil gaarsiin xil rasmi ah raadso calafka ayaa qabtaa ilaahay baa bixiyey xukunka kelmadda intaasan ka horan qodobka labaad waa doorasho nooceeya doorashada nabad iyo nolol ay geysatay ilaa qolo walba ajandaheedii bay geysay hadda la isla soo ururinaya la isla soo qoraya la isla soo akhriyaya kadib waxbaa ka soo bixi doona waa ogaan doonaa wixii ay soo celiyaan beesha caalamka oo loo gogol dhigtay oo garta iyaga loo dhiibtay waxay naqaan oo gar ah waa arki doonaa laakiin waa noocee waxaa la yidhahdaa proportional representation doorashadan waa doorasho lagu geliyo xisbiyo qodobka 3 qodob wey qodobka koowaad waa xisbiyo iyadoo la ilaalinayo qoondooyinkii beelaha ama 4.5kii dadku in walba ay ka heleen reer walba codkoodii xubnahoodii waa loo ilaalinayaa laakiin waa xisbi
dadku maxay dooranayaan xisbiga nabad iyo nolol xisbiga JSB xisbiga JSB ama nabad iyo nolol ama himilo qaran ama midnimo qaran ama waxay ahaataba oo meesha la dhigo ayaa markaa waxaa dhacaysa in loo codeeyo dadku u codeeyaan xisbiga sawirkiisi iyo hogaamiyaha xisbiga sawirkiisa baa meesha la saaraya qoladaas u codeynaysa kow qolada hesha proportional representation way codka ugu badan hesha percentage ugu badan hesha percentage kaas ay ka heshay codka bay xildhibaanada ka qaadanaysaa qoladaas xulanaysa xildhibaanadooda hob number 102 anaga qaadanay hob number konton anaga qaadanay hob number 204 anaga qaadanay saasay u xulanayaan markay intoodii qaataan xisbiga ku xiga isaguna intiisii qaadanaya kan ku xiga hadana intiisii qaadanaya saasay ku dhamaanaysaa qodobka saddexaad hal deegaan doorasho ama single constituency ayay proportional representation kaasi xambaarsan tahay xasanna tiibuu qaatay 2018 ay nabadii nolol qaadatay iyaguna waxay dhaheen fine Soomaalida qaadanaa isku mid baan haysanaa laakiin the devil is in the details bali mushkiladu waxay ka imaanaysaa how technically see loo fulinayaa doorashada shanta qodob aan sheegay waa in la maraa inta hadii la helo shaxshax hadii ayna ka adkaadaan ajnabiga faragelinta ku wada dadka iyo dalka ayna ka adkaadaan hadda Soomaali hadaan nahay waa jabnay I hope doorashada ku xigta inay dadku shacabka ahay toos u soo doortaan wax walba diiwaan gelinta la diiwaan gelinayo iyo agabka lagu diiwaan gelinayo iyo guddiga doorashada oo diiwaan gelinaya iyo xeerarka lagu diiwaan gelinayo iyo magaranaysa amniga diiwaan gelinta iyo codeynta iyo daahfurnaanta inta hadii laga heshiiyo oo xasan dhulka dhigo doorasho fiican baa dhacaysa dadkuna wuxuu ka baxayaa waxa hadda ay ku jiraan musuq iyo tuugo iyo ajnabi in loo shaqeeyo jaajusnimo lagu shaqeeyo ayaa meesha ka baxaysa Soomaaliya xor ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayna tuso oo aan beel caalam u gardhiganayna iyadu is aaminsan oo is fahamsan oo is waafaqsan oo wax wada leh dad wax wada leh oo ku heshiin way ceeb ay ku tahay fadeexad way xasanow ceeb bay kugu tahay inta ragga la heshiin weyday walaalaha ah oo Soomaalida wax kula leh inta la heshiin weyday in beel caalam aad u gogol dhigataan oo ay idin kala dhexdhexaadiso fadeexad bay kugu tahay inta ku ekee ceebaha inta ku ekee